Midaan joognaa maanta waa shacabda weeyaan oo xisbiga wadani ay kormeer ku soo mareen saaka dadka localkii waxay noo sheegeen MCH-kani inuu yahay meeshii caafimaadka ee degmadaasi lahayd 4 sano ka hor bay dhiseen community-gu iyaga ay organize gareeyay oo dhistay meeshaasi waxay noo sheegeen inay 4 sanadood xidhan tahay waxay ka mid tahay dhibaatooyinkii 7 sano ee dalka soo maray bay kow ka tahay caafimaadku waa basiga ay community-gu u baahan yihiin needska ugu horeeya weeyaan biyaha iyo caafimaadka ugu horeeya community-ga inta leeg cadada leh waa 6 goobood oo sidaas iskugu xiga oo goobtani goobaha ugu codka badan la ay ka mid tahay waxa la noo sheegay goobtaasi inay xidhan tahay muddo 4 sanadood haba yaraatee wax visitor oo ama ay wasaaradda caafimaadku ay meesha timideen ayna jirin dadkan maaska ee dhaqaaqay ee Soomaaliland waxyaalaha ay xasuusanayaan bay ka mid tahay 7 sano ee soo martay dhibaatooyinkaas ay xasuusanayaan dadku lacag kuma socdaan kulmiye waligiiba lacag ha bixiyo laakiin dadku wax ka weyn bay arkayaan aragtida ay arkayaan waxa kow ka inaanan cid danaynayso oo basic life-koogii wax ka qabanaysa aanay jirin bay kow ka tahay MCH-kaasi oo 4 sanadood xidhan yahay insha Allah goobaha kale ku xigana waan maraynaa meel walba dhibaatadaas taala oo waxyaalaha ay ugu horeysay kooda ka tahay waxa nasiib darro ah wadadii boorama ka soo baxaysay aan soo maraynay maanta saacad baan u soo soconay meel 10 kiiloomitir waxa weeye GPLG-ga qolada la yiraahdo waxa la waxay deegaanka ka qabatay ma jirto MCH-ka sida Xuseen sheegay waxa weeye community-ga lacagtooda ku dhistay oo urursaday 4 sano xidhan yahay hadda waa qafilan yahay qafil baa ku dhajisan waxa weeye wasaaradda caafimaadku umay waayin hal neersana iyo dhakhtar ay keento iyadoo qalabaysan umay waayin waxa weeye community-ga tacabkooda halkaas ku khasaaray iska aad arkaysaan 4 sano ayuu qafilan yahay waxaan u sheegayaa deegaankan maanta dadka halka jooga ee arkaysaan waxay diyaar u yihiin inay xisbiga wadani ay codkooda ku soo saaraan aad ugu faraxsanahay dadweynaha beeshan caashacdo degan ee dareemay dulmiga iyo dacaska xukuumadda maanta jirta ay ku hayso dadkeeda waxaan aad uga xumahay dariiqa imkaan soo maray ee xukuumadda 7 sano dalka haysatay ee madaxweyne ku xigeenka ka soo jeeda gobolka Awdal oo haysto barnaamijka GPLG-ga ee hawlaha noocaas ku shaqo leh ee maanta intaasi aan wax ka qaban kari waaye ilaahay baan ku dhaashay markaasan ku ceshanaa 7 sano oo dambe ayaan ku ceshanaa waxa weeyaan guriga dhisan xoog bal wada waxa dhistay shicibkaas ka dhistay dadka shacabada iska dhisatay wax laga ogayahayna ma jirto maanta laakiin waxa la ballan qaadaya oo ballan codkaas wadan heew soo baxo ilaa wado ilaa guriyo ilaa waxa leexad baantiin oo dhan bal idin dhisayo diyaar ma u tiidin codkina yaa siinaysiin soo diyaar maaha ma wallahi ba diyaar ma u tiidin sama dhiigaan u shubaynaa wadani waxa weeyaan wax qabadkii xisbiga kulmiye uu diin qabtay muddada 7 sano ah ee wadankan haystay halka waxa ku cad maanta intaan soo soconay boormay la ashacado inay tahay 1960 sidii laga tagay ilaa maanta waxa dhibtaas oo dhan loo geysanayaana waa idinka waxaan anagu wax doonaynaana waa idinka waxaan anagu rabnaa ma aha waxaan anagu qaadanayno jeebka ku ridaynayno ama la sheego rag caaqileyna oo meelahan ka taga ay idinka magaciina wax ku qaataan laakiin muhiimaddu waxa weeyaan inaad garataan idinka waxa idinka maqan oo doodaan waxa idinka maqan annagu waxaan u taaganahay waxa idinku doonaysaan xisbigan wadani wuxuu rabaa isbedel inuu ku sameeyo xisbigii hore ee wadankan haystay oo muddo far badan soo dhibay dadka soo qaatay dhiigooda soo jabiyay xuduudihii sharci darrada ka dhaxabuuray qabiil qurun xasad iyo waxyaabo lamid ah waxaan soo dhaweynaynaa xisbiga wadani ayaa si fiican u soo dhaweynaynaa annagoo beesha shacabdo waxaan leenahay حق الله ينوافجيو سيدي رونا الله ينوافجيو موافقتنا الله ينوهجيو حسبك قول استنا الله ينقيله كيد الكيس يدك كيس وحقبت الله ينقيله دق مو ونكسن يد دم ونكسن الله ينقص وصاروا